wuu dhamaaday casrigii shahaadooyinka kaliya la isku qiimeyn jiray. shahaadada markii aad shaqo raadinaysid waxaad qaadataa CV-ga waa wax kooban oo ku saabsan adiga, waliba in yar oo aad soo jartay oo aad soo koobtay oo aad isku gadaysid. casriga hadda la joogo adduunku wuxuu u socdaa in qofka lagu qiimeeyo sooyaalkiisa aqooneed, maaha shahaadadu wato, laakiin trendiska adduunka ka socda oo teknolojiyadu ay hagayso qofku sidoo ula socdo. macquul maaha casrigan qof sheeganaya aqoon-yahan in uu yiraahdo shahaado kaliya wato. waxaa looga baahan yahay in uu fahansan yahay mawaadiic kala duwan. haddayba u marto in uu shaqo ku helo shahaado, waxaa imaanaya caqabado u baahan wax shahaadada ka badan. waxyaabaha marka muhiimka waxaa ka mid ah qofka maanta jooga ee raba inuu casrigan la jaan qaado, waliba aqoon kula jaan qaado, in uu waxyaabo asaasiyaad ah ka duulo. qofku horta marka koowaad inuu leeyahay field ama wax uu maaragtay u go'o oo barto, si fiicanna u barto. waxa uu baranayo in uu jaamacadda si fiican uga barto, in uu akhris badan ka sameeyo. ugu yaraan bishii waa inuu ka akhriyo hal buug. waa in uu la socdo dadka khubarada ku ah filligaas. social media hadda qof walba khabiir maanta uu ku jiraa in uu la socdo dadka noocaas khubarada uu la soconayo, inuu la socdo qoraaladooda, maqaaladooda, buugtooda si uu uga dab qaato. sidoo kale inuu la socdo magazines-ka ama majallaadka caalamiga ah, gaar ahaan kuwa ka hadla filliga uu bartay, inuu si fiican la socdo. isagana wuxuu ka helayaa xog update ah oo aqoontiisii kaabta. sidoo kale waxaa looga baahan yahay in uu qofkaasi si joogto ah wax u dhageysto, wax u akhristo, wax u kororsado. taa waxay ka saacidaysaa inuu noqdo qof cilmiga ama filliga uu bartay la jaan qaadi kara, maaragtay kuna shaqayn kara. dadka qaybtooda waxaa laga yaabaa inay la soo badaan, anigu Soomaaliyan joogaa, wadan borobareemaan joogaa, sidee baan la jaan qaaday? moogtahay maantay in ay jiraan fursado shaqo oo adiga oo Soomaaliya jooga aad ka shaqaynaysid Mareykanka oo kale. waxaa jira website fara badan oo fursado shaqo soo qora. hadda ka hor waxaa dhacday nin aan saaxiibnahay baa Facebook su'aal ku soo qoray. marka wuxuu yiri qof dhalinyaro ah oo shaqada ka baxay, micnihiisa waxbarashada dhamaystay oo shaqo doon ah, maxaa tala siin lahayd? talooyin fara badan baa qoray. waxaa ka mid ahaa inuu qofkaas filliga uu bartay institutionada ka shaqeeyo inuu xiriir la yeesho, in uu shaqo weydiisto, xataa free ugu shaqeeyo, internship ugu shaqeeyo, inuu saaxiibo ku yeesho, in dadka shaqaalaha filliyadaas inuu xiriir la sameeyo, in uu wax ka akhriyo, in uu institution haddii uu target gareeyo lacala taariikhdiisa soo ogaa, si uu u noqdo qof dadkan wax shaqaalaysiinaya marka uu hor fariiso qof xogogaal oo wax la socda. marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye qofkii inuu yahay qof maaragtay markasta wax u kordhayaan. adduunka qof meel taagan ma socon karo. farinta ayada marka ujeedka aan ka leeyahay waxay tahay dad badan oo dhalinyaro ah oo aan qaarkeen aan classmate ahayn baa jiray oo waxay sameeyeen jaamacadaha markay ka baxeen filliga waa ka hareen. waxaa laga yaabaa filliga anigu jaamacadda aan bartay, dadkii aan wax ka wada baranay filligii aanu jaamacad ahaan u baranay, in less than maaragtay 10% ay filligii ku shaqeeyaan, inta kale ay business kale ama waxyaabo kale ka shaqeeyaan. marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay qofku maadaama aad waxa kan waqti gelisay oo aad ku dadaashay in aad si fiican uga fogaatid oo aad maaragtay daraasad badan ka samaysay, dhex gashid, khabiir ku noqotid. taa waxay ka saacidaysaa in
aad dadka kula maaragtay jaalka ah aad ka horreysay oo ka mudnaatid filligaasna aad khabiir ku noqotid waqtiga dal joogo oo waqtiga waxbarashada joogtada ah ha ku harin shahaado mar walba waxbaro